maalinta ciidu waa maalinta ugu weyn ay farxad dareemaan carruurta Soomaaliyeed. Waa ku faraxsanaynaa cilaan liisaaro. Waa maalinka ay ku riyoodaan dhar cusub iyo madadaalo. Laakiin boqolaal gabdhood oo agoon ah maalintan waxay u ahaan lahayd mid madow haddii aysan jiri lahayn qof ka fikiray. Waxaan maanta ku sugannahay xarunta agoomada gabdhaha ee Boondheere. xaruntaas oo maanta ka wadna barnaamij qayri barnaamijkaas oo lagu baxay rixlatuna ila aljanna. barnaamijkan waxaa ku fikirnay Ramadaanka bilowgiisa anagoo isdheer maxaa qabatin Ramadaanka dad badan waxaa arnaa inay sameeyaan afurin dad qaarna carruurta inay ciidsiiyaan laakiin anigu waxaa ku fikiray inaa fikir unique ah keensado carruurta waxay u baahan yihiin farxadooda ka dhiman marka dhar loo gado in cilaan loo saaro siiba gabdhaha marka xarunta agoomada gabdhaha Boondheere ku fikirnay inay imaano cilaan kasta ka filin. magaceedu waa Aqiila Salaad Nageeye waa ardayd dhalinyaro ah oo fahantay in farxaddu ay tahay xaquuq balse ay u baahan tahay qof u istaaga. Aqiila iyadu ma ahan qofka cilaanka marinaya gacmaheedana ma ahan kuwa sawiraya nashqadaha balse waa iyada maskaxda ka dambaysa mashruucan. barnaamijka markaa ku fikiray kadib waxaa u baahanay qarashada u baahanay maadaama helna gabdhihi cilaanka saar leh oo xoogooda baxsan lahaay waxaa loo baahan yahay cilaankii wixii gabdhaha madaxa loogu qurxin lahaa wixii dhan waa loo baahan yahay. shirkadaha Soomaaliya ku yaala shirkad xumada u tagnay shirkadaas oo waliba cusubtay inaan magacooda qarino oo aan ku dhawaaqin marka kadib ayaga bixiye wax walba barnaamijka ku qurux badnaa lahaay igin Ilaahay ajir ha ka siiyo anagana Ilaahay ajir ha naga siiyo inta dhamaan ka qayb qaadatay. barnaamijkan marka wuxuu dhici doonaa 2 maalin oo socon doona maanta waxay ahayd maalinta koowaad ka qaban xarunta agoomada gabdhaha Boondheere maalinta labaad waxay ka dhici doontaa meel ku taalo ayadana kaam kale oo weedo ku yaalo marka insha Allah waxaan rajaynayaa sida maanta ay qurux badnaa si ka daran inay taasna qurux badnaato. waa maasantiin shirkadda oo barnaamijka noo qurxisay carruurtana sida ugu faraxsan ku maasantiin marka shirkadaha kale waxaa dhihi lahay markay dhalinyarta fikir keensadaan inay fikirkooda ku taabageliisiin oo ku raacdiin. Maalinka adeeca ixtiraam bixiyo yaraamaani adagaho indhaha kuweega haddii u adkaan alifkiyo baari ustaadkeenu dige dasiyeeniyaha. waxayna agaasintay in ka badan 300 oo gabdhood oo agoon ah si ay u helaan quruxdii ay u baahnaayeen maalinta ciida. sidoo kale maanta waxaa cilaan inta loogu saaro maalinta koowaad ee ahayd in ku dhow 300 oo gabdho waxaa loo hagaajinayay tintooda waxaa loo saarayay cilaankooda hadduu ahaado guduud hadduu ahaado madow waxaa gabdhaha ka shaqeynaya tiradooda ay ahaayeen 40 gabar 40kaas gabar waxaa ayaga naftirkooda taabagelinaya waxooda bixinayay shirkadda ayadin sheegay marka aad u maasantii shirkadda saytii qof kasta oo barnaamijkaas ka garab qaata dad badan ayagana waxaa jira naga garab qaateen oo barnaamijkan ugu caawiyeen iyagana way maasan yihiin oo asxaabta kamid ahayd. waxay isugu yeertay koox xirfad yaqaano ah. farxasta maanta kula jooga waxaa Fatima Xamshi Xasan maanta waxaan joogaa xarunta gabdhaha agoomanka ee degmada Boondheere. cilaanka waxaa bartay 2019 hooyada ee bartay waxay ii bartay skills leh aqoon leh ka hel mana ku shaqeeyay meelaha inta tahay ku shaqeeyay laakiin xaafadda gabdhaha walaalay ugu maraya markay aroosada iyo markay maamulada ciida maantana waxaa ka soo qayb galay xaruntan gabdhaha lagu maalinta ciida soo dhawaatay waxaa go'aansan inaan xoogayga ugu soo anfaco anoo excited ku farxad ka helaayo ajir ka helaayo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo gabdhahan quruxda badan leh inaan farxadooda ka qayb qaato at age ayaka joogana waa jeclaa cilaanka liisaan maalmaha ciida because wax farxad waaye ana farxadaas markaas aniga ka helaya inaan ay ka helana haddan u joogaa. cilaanku halkan ma ahan oo keliya midab gacanta lagu qurxiyo waa daawo lagula tacaalayo dareenka cidlada. marka ay gabadha agoonta ay aragto gacanteeda oo la mid ah tan saaxiibteed waxay dareemaysaa inay bulshada ka mid tahay. ani ahaanteedu markaa yaraayo gabdhahan camal daadooda joogay waxaa ku farxi jiray in cilaan lii saaro markaa yaraa iska dhab hadda xaaladan la joogo anoo qof weyn ah waxaa u baahanahay in cilaan lii saaro marka imagine garay gabdhahan yarka farxadooda say ugu qayb qaadan karta cilaanka marka waxaa kaloo dhihi lahay saylonon Soomaaliya ku yaalo gabdhaha masaakiimiinta cilaanka raqiis loogu dhigo ha lagu taabageliyo sidoo kale waxaa meesha ka arka fursad gabdho badan oo waxaa jiro cilaan yaqaanaan oo ku shaqeeyeen cilaankaas guryahooda joogaan hadda xoogooda way baxsanayaan waxaa dhihi lahay gabdhahaasna bukiyeerada iyo saylonada Muqdisho ku yaalaan shaqo siiya oo ugu qayb qaata horumarkooda xirfad way yaqaanaan. 300 oo gabdhood ayaa caawa gurigooda ku laabtay iyagoo dareemaya inay yihiin amiiro. sheekada Aqiila Salaad Nageeye waxayna tusaysaa inaan u baahnayn lacag badan
si aan dunida u qurxino. Waxaan u baahannahay oo keliya inaan la imaadno fikrad, dhiiranaan iyo qalbi raba inuu dadka kale u adeego. Aqiila ma bixin keliya cilaan, waxay bixisay rajo iyo farxad socon doonto intay ciidu jirto.